nabadda wadayaal ku soo dhawaada barnaamijka nabad iyo nolol taas oo aanu diiradda ku saari doono horumarada ka socda waddankeena hooyo ee Soomaaliya waxaanu mar walba iltogan ku eegi doonaa barnaamijyada horusocodka ah ee laamaha dawladdu ay ku talaabsadaan waxaanu dhiirigelin doonaa xoojinta amniga iyo dardargelinta kaabayaasha dhaqaale dib u dhiska waddanka annagoo ka duulayna aragtida ah nabadi waa nolol waxaan ballan qaadayaa sharafkii iyo ciisadii iyo karaamadii Soomaaliya inaan soo celiyo caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaalla waxaa ka mid ah amni xumo baahsan dhibaatooyin bini'aadanimo sida abaaraha haatan ka jira dalka dhamaystirka dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed xoojinta sareynta sharciga iyo nidaamka cadaaladda dib u soo celinta kalsoonida ay shacabka ku qabaan dawladooda ku soo dhawaada daawadayaal qaybtii koowaad ee barnaamijka nabadi waa nolol waxaanu qaybtan ku eegi doonaa waxqabadkii boqolkii maalmood ee ugu horeeyay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aan wada xusuusnaano 100 casho waa muddo aad u kooban aan se wada ogaano 100 maalmood waxa ay jaangoyn u yihiin barnaamijka siyaasadeed ee madaxweynaha la dagaalanka musuqmaasuqu waxa uu asal u yahay amniguna waxa uu u garab raariciyaa nabaduna waxay hooyo u tahay nolol suuban markii golaha shacabku aqlabiyada ay ku doorteen madaxweynihii waxaa dabaaldegyo farxadeed markiiba bilaabay shacabka kuwaas oo u muuqday in sidii ay wax u rabeen wax ugu dhaceen waxaa taa barbar socday madaxda caalamka oo halays ka dhigtay guusha shacabka Soomaaliyeed baale This is a clear indication that none other than Somalis can decide on their own fate. Telefishinka Al Jazeera waxa uu toddobaadka isbarbardhig ku sameeyay dhowr hogaamiye oo ay u kurgalayaan sumcadda ay bulshadooda ku dhex leeyihiin Al Jazeera qiimayntii ay samaysay waxay ku sheegtay in jamaahiirta oo dhamma isku raaceen madaxweyne Farmaajo inuu yahay shakhsi hufan oo sumcad leh يعلق الصوماليون آمالا كبيرة على حكم الرئيس المنتخب محمد عبد الله فرماجو الذي يصفونه بالسياسي النزيه وحسن السمعة 16 فبراير ayuu si rasmi ah madaxweyne Farmaajo xilka ula wareegay waxaana uu ballan qaaday in dawladdiisu ay ku shaqayn doonto rabitaanka shacabka markan madaxweynaha waxa hor yaala inuu muddo 3 casho ah ku soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo hogaamiye golaha xukuumadda maalintii 16aad ayuu ku guuleystay inuu magacaabo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ku caan baxay run sheeg iyo hal adayg Somalia has a real opportunity to finally emerge out of this dark, to finally write again its history, to finally take part of the world as it has been for many years. La dagaalanka musuqmaasuqu waa tiirka ugu horeeya ee dawladdu sheegtay inay xoogga saarayso. Soomaaliya marar badan waxaa lagu eedeeyay in musuqmaasuqu uu dawladda laamaheeda iyo habdhaqanka bulshada uu si weyn ugu faafay. safarkiisii koowaad uu dalka kaga baxo madaxweynuhu wuxuu abbaaray guriga Rabi ee barakaysan isagoo halka ku soo cimraystay inta kadibna wuxuu kulamo midho dhal ah la qaatay madaxda boqortooyada Sacuudi Arabiya kuwaas oo ballan qaaday inay gudaha Soomaaliya ka hirgelinayaan mashaariic hoogan oo dib loogu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo xarimaha dawladeed oo ay ka mid yihiin sida xoolihii ay joojiyeen in dib loo furo xoolihii maxay yeelay xooluhu waa kaabayaasha waaweyn ee dhaqaalaha ee dadka Soomaaliyeed ka soo galo ilaa $300 milyan yaa ummadda Soomaaliyeed ka heshaa xoolahaas dhufinteeda in dib loo furo oo aan u sheegno cudurro inaysan qabin xoolaheena iyaguna waa ogolaadeen waa fureen dhismayaasha dawladda guud ahaan kulli hadday yihiin kuwa gobolada ku yaala kuwa Muqdisho dib loo cusboonaysiiyo oo dib loo dhiso madaxtooyada in la dumiyo
oo dib loo dhiso waxay ballan qaadeen in baarlamaanka sarta baarlamaanka dib loo dhiso waxay ballan qaadeen in jidad ay dhisaan waxay ballan qaadeen airport cusub 28 February waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay shirweyne ballaaran oo loogu gurmanayo abaaraha madaxweynaha oo halka ka hadlay wuxuu abaarta ku sifeeyay masiibo qaran taasi waxay keentay in qaramada midoobay ay dardar galiyaan kaalinkoodii deeq-bixiyayaasha duwalka reer Yurubna qaar ka mid ah ayaa la arkayay iyagoo u safraya gobolada fogfog si ay indhahooda ugu soo arkaan masiibada abaarta madaxweynuhu waxa uu booqday magaalada Baydhabo si uu ugu kuurgalo abaarta ka taagan gayiga waxaan rabaa inaan u sheego sababta halkan u yimid maanta laba arrimood yaa ugu weyn kow inaan abaar la qaybsado oo abaartan ilaahay keenay aad la dhibaatooteen oo cudurradeeda wadata inuu ilaahay naga dul qaado madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay magaalada Nairobi madaxweyne Farmaajo isaga oo sheegay soo dhaweynta inay asal u tahay taageerada shacabka ee uu kasbaday mudane Farmaajo safarkaas Kenya oo la sheegay inuu guul soo hooyay waa kan madaxweynaha oo sharaxaad ka bixinaya qaar ka mid ah libtii socdaalkaas uu ka keenay wuxuu ahaa safar miro dhal ah oo keenay in dadka Soomaaliyeed oo mari jiray meesha la yiraahdo Wajeer oo lagu dhibi jiray anigu xitaa aan kamid ahaa markaan prime minister ka ahaa oo aan qaadanay diyaaradaha shacabka aan arkay dhibka ay marayaan dadka Soomaaliyeed in aan arintaasi xal u helno Together we are here to basically witness this very historic event whereby we have a direct flight from Mogadishu to Nairobi. Daraartii 5 Abriil qaraxyo ismiidaamin ah oo al-shabaab soo maleegtay ayaa salfaday nafta 6 ruux tiraynta ka badanna way ku dhaawacmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ku labisan dareyska ciidanka ayaa daraartii taa xigtay cilaamiyay in wadanku uu xilligan ku jiro dagaal ka dhana al-shabaab waxa uu sidoo kale cafis u fidiyay intooda rabta inay nabadda qaataan kuwaas oo dhaqan celin iyo waxbarasho loogu ballan qaaday subax wanaagsan saa u jeedaanba maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago kow horta waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo shalay arrintii foolxumada ahayd oo dhacday qaraxa ahaa oo ay ku nafwaayeen 6 qof dad badan ay ku dhaawacmeen runtii qaraxyadan waxay noqdeen wax soo noqnoqda oo aan dhammaan saas darteed yaan maanta waxaan u cilaaminayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro xaaladan dagaalka ahna aysan noqon doonin hal dhinac oo kaliya dagaalkan uu noqon doono dagaal hadduu Ilaahay yiraahdo xaq ah بعدما أن حق صعنه إلهي إنه نلجر دور إن شاء الله madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre oo ujeedadoodu tahay xukun daadajin ayaa shir 2 maalmood socday ku qabtay caasimadda wadanka waxaana shirka wada tashi qayb ka ahaa madaxda maamul goboleedyada waxaana la isla afgartay wada shaqayn iyo isu tanaasul buuxa waxaan isla gaarnay inaan ka shaqeyno danta guud ee ummadda Soomaaliyeed inaan ku midowno دور arrimood oo muhiim ah inaan u shaqeyno Soomaalinimada inaan u shaqeyno waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno waxaan ku heshiinay dibka maanta Soomaaliya haysta oo ah amnimada inaan ka wada shaqeyno oo aan policy guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalkan nabad ugu soo dabaalin lahayn ummadda Soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hogaamin lahayn dabayaaqadii bishii Abriil madaxweynaha oo hogaaminaya wafdi ballaaran ayaa martiqaad rasmi ah ku tagay wadanka Turkiga soo dhaweyn heerkeedu sarreeya ayaa madaxweynaha loogu sameeyay Turkiga
iyada oo loo goglay roog ku midabaysan calanka buluugga ah waxaana hareer socday oo salaanta ka qaadanayay madaxweynaha askar gaardiyeysa oo ku labisa midab xalan oo qurxoon dowladda Turkigu waxay goor walba waayihii dambe garab siinaysaa Soomaaliya oo ah dal haatan u muuqda inuu ka soo kabanayo dagaalo sokeeyo oo sanooyin badan socday Turkigu Soomaaliya waxa uu ka hirgeliyay mashaariic lixaad leh oo dib loogu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha ee waddanka 8 May madaxweynuhu wuxuu gaaray degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxgaradka reer Afgooye waxay aad uga cabteen isbaarooyinka wiiqay sumcadda magaalada waxayna madaxweynaha ka codsadeen umuurta inuu wax ka qabto mudane madaxweyne magaaladan dhibka haya ilaahayba iyo inta joog waxaan u malaynayaa magaalada gudaheeda dhowr isbaara dhexda waa magaalada gudaheeda dhowr isbaara dhexda bannaanka haddaad u baxdana warkeed badhaa wax laga qabtona ma jirto isla madashaas ayuuna madaxweynuhu go'aan rasmi ah ka soo saaray kaas oo dharaartii xigtayba Afgooye isbaarooyinkii lagaga nadiifiyay maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu Ilaahay yiraahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha dawladdaani dawlad xoog ku timid ma aha waa dawlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye awoodan idinka iska leh annagu ma lihin annagu waxaan inahay adeege intii aan la qaban shirkii London dawladdu waxay dadaal galisay sidii Soomaalidu aragti midaysan ula tagi lahayd London waxaana la abaabulay shirar lagu lafagurayo diyaar garowga shirkaas iyada oo la aabiyay ajandayaal culculus oo danaha Soomaalida lagu jaangooyay markii shirkii London la tagayna madaxda Soomaalidu waxay muujisay midnimo warbaahintana waxa laga arkay mas'uuliyiintii dalka oo gacmaha haysta shirkii London waxa la geeyay aragti midaysan oo siyaasad iyo dhaqaale ku waajahan adduunku wuxuu arkayaa dalkan inuu istaagay oo majuur noqday oo midoobay yuu arkaa iyo sida electionku u dhacay iyo sida u taageerteen dawladnimada weeye waxa la soo dhaweynaya aniga ma waxa la soo dhaweynaya waa idinka weeye haddaad doonaysaan adduunka inaad ka heshaan sharafkaas iyo ixtiraamkaas iyo qadarintaas qabiilka hala dhaafo qabyaaladda hala dhaafo annagu waxaan ka ballan qaadnay caawa waa aragtaan meeshaan aan wada taagannahay waa aragtaan ballan ilaahay waxaan ku galnay inaan dariina ka shaqeyno ma maqlaysaan ballan ilaahay waxaan ku galnay mar kale kulanti wanaagsan meel kastoo naga dheehanaysaan kuna soo dhawaada qodobada warka ugu waaweyn daawadayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee dalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay 74 sano kadib dalka jamhuuriyadda Soomaaliya wali waxay xusayaan dharaartii 15 May xilli adag oo Soomaalidu xindaab gumaysi ku kala oodan tahay ayay dhaqdhaqaaq wadaniidaysan bilaabeen barbaar Soomaaliyeed oo tiradoodu 13 tahay kuwaas oo fikirkooda ku fidiyay shantii qaybood ee Soomaaliya gumaystuhu u kala dhambalay dhalintaasi waxay talaaleen mabaadi' tir adag ku tiirsan
judhii horeba waxay bilaabeen barnaamijyo cilmi kororsi ah oo lagu dhisayo garaadka dhallinyarada. marxaladda kolkii ay ka gudbeen ee garash ahaan SYL iyo Soomaalidu wada jaan qaadayna waxay markii dambe toos u abaareen dhanka siyaasadda iyo la dagaalanka gumaystaha. wafdi danaha Soomaalida difaacaya ayaa u direen jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. halgankii siyaasadeed ee sooyaalka SYL barnaamij gooni ah ayaynu ku eegi doonaa. waxaase la isla qirsan yahay SYL xorriyadda Soomaaliya door weyn inay ku lahaayeen. 74 sano kadib weydiintu waxay tahay maxaynu ka baran karnaa SYL? maxaase u fududeeyay dhallinyaradaasi tallaabadii ay ku tiigsadeen xorriyadda Soomaaliya? halgankaas ay ka soo gaareen inay ku keenaan xorriyadda waxa weeye maanta way taagan tahay inaan wax badan ka baranno hadduu Ilaahay yiraahdo. maxaa yeelay waxay ka tageen qabiil, waxay ka tageen xagdir diineed, waxay u soo bambaxeen ama bannaanku soo dhigeen wadannimo wax la yiraahdo iyo patriotism, taasoo runtii Soomaali midaysay oo walaalaysay oo u samaysay calan iyo qaran adduunka laga ictiraafsan yahay. maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ummadda Soomaaliyeedna waa u hambalyeynaya. waxaan leeyahay hambaliyo